أحمد إبراهيم هاي. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحاضرون. الحمد لله الله يا محد إسكاله اللي نقصه كربيه ماشي عن حفلة عن قرعة بدن أو ما أنت نقصه قلتنا يا أرض السلامة فوم 2 وعليه هاي معلمين تو أو سلام يوم عملياش بارك الله فيكم. واحد نوصل بالدكتين جودين وأد بلارن رنتي وأمانتا قفكستو ضمير له ما أنت وحماشا وحوين أيو دريمي كرا وقفكستو نول وإنو مسيرا مركا ومسيركا وحبلن أياركو مسيرا لكن وحمسيركو باعن واتنو كلوي إن أوت كذا معنى هذيك هذا شيء سيدا هذا الماء ماشى القصة بردقي وأقوته بارسل إن إيمان تساس كون غضان أو جهد أد بحسد أو ما أنت وح الله لو وجهك بهاي إلى سلسلة وأرن أد مهمة رسولك صلى الله عليه وسلم أحاديث عنوة المامي لا حسد إلا في اثنتين. حاسدني ما مجرته بعنا كمش مجرته إلا الله ما رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكتي في الحق نين إلهي ما نسيي مال كاسو حضر كسل الذي سيد حقه وبع الله نين كاسو على مسيرة ورجل نين أتاه الله علما نين إلهي علم سيي فهو يقضي آناء الليل وأطراف النهار علمي قاسدنا كنت مالنتي يهوينكي لبدا سبحانهن لما مسير ربي سبحانه وتعالى أصوم ما أنت كلا ساراي معناها نينك علمي قاله يمكن أن علمي قاله هاي وعليه يا رب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معناها مسيمنيهين نين وحك سايا يقفا وحبك سيدي جوابته أو ماشي متى محذوف جوابته محذوف وحوان مركا وحالو سوق قدرنا لا ومسمن نين أقول له يقف أن أقول له معنا جن ما لأن وليس أخو العلم ليس كمن هو أخو الجاهل نين علم له معها مسمن إيد جاهلا ومركا مبدئي وعيكله إفتين مركا أقول وإفتين مالك لو عواي العلم يبني والجهل تهدمه علمي وحبه بساء جهلي وحبه بربرنا مركا ولا ليانو وعليا يا قونتا ووحوي مفتاح الحياة ومفتاح الآخرة الدنيا دان فره هذا وعقون آخرة فره هذا وعقون لأن مركا آخرة لتغو ربي سبحانه وتعالى وحا قوصنا وعلوم ذي dadka wax uu sheegay aakhira inuu la joogo Allah waxa maanta uu sheegay culumadii marka waa in maanta ardayda ilmaha lagu tarbiyeeyo wax barashada maanta laga dhigin لأن qofka hadii la sii day wax barasho aan loo deyn wuxuu noqonaa nin jaahil ah kal ximaar oo kale jaahil kana nafsadiisa wax uma taro adina wax kuma taro wax uu anfacaya male waa sida ximaar oo kale qofka bini aadamka goormo qiimo yeelan kara wuxuu qiimo yeelan karaa marka uu wax barto oo bulshada uu anfici karaa nafsadiisa uu anfici karaa wax weyn ayuu taraa waxa la leeyahay qofka hadii maal ilaahay siiyo oo hanti fara badan oo yeesho bulshada waxba kama soo kordhinayo maalkaas waxa laga yaabaa nafsadiisa ama eheladiisa inuu maanta wax ugu taro laakiin bulshada inta kale wax ugu tari karo laakiin qofka marka aqoon uu yeesho waxa maanta uu badbaadin karaa bulshada oo dhan sababtiisa ayaa ilaahay ku badbaadin karaa aqoontu wax weyn ay tartaa لأن رسولك صلى الله عليه وسلم وعليه حديث صحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 بن آدم هدود انتو عمل كيسي وقع إلا 6 مايل صدقة جارية وصدقة جارية مسجد النساء ما أنت أولق
midda kale waxa way cilmi oo la intifaacsado qofka caalimka hadduu dhinta xataa ajirkiisu waa u socdaa lianna maanta wixii oo ardaydii oo wax u baray ayaa maanta meeshii taagan mar har iyo habeen waxay ku ducaynayaan waxay leeyihiin ilaahu macallinkeen ilaahu markaa u naxariiso oo cilmi yuntafacu bihi oo waladin saalihin yudcaa lahu bacda mawti ama cunug wanaagsan oo u duceeyo markuu dhinta kadib intaas waxaan ahayn maanta wax kale oo bini aadamka wax u taraayo malagu lianna qof jaahil haddaad ka tagtid oo maanta adoo dhimatay waxba kuma anfici karo wax uu kuu taraayo male kuma xasuusanaayo nafsadiisa wax ugu tari karo adina wax kuma tari karo laakiin cunug aad tarbiyaysay juhdi oo maanta aad ka bixisay oo wax walba oo maanta horumar ah aad gaarsiisay waa nin oo maanta kuu duceynaya haddaad dhimato hataa walow marka waxaan leeyahay ardayda oo maanta soo guurtay famtuu salaama baaraka allaahu fiikum wa baaraka allaahu calaa juhuudikum ilaahay idin barakeeyo juhdiga aad soo bixiseen ilaahay ha barakeeyo macallimiinta oo u taagneed har iyo haween oo inay idin tarbiyeeyaan ilaahay ha barakeeyo waxaan leeyahay weliba ma dhowidga wax weyn ayaa idin dhiman ha isdhihin maanta meel ayaad gaarteen weli alcilmu cilmigu wuxuu ku bilaabanaa min almahdi ila luhdiwi darabta hooyada ilaa gudkowi wax badan ayaa idin dhiman jaamicad ayaa idin dhiman wax weyn waa qofka bini aadanka waxaa ilaahay uu gaarsiinaa hadba meesha uu dadaalkiisu gaarsiisan yahay laakiin nin oo fashil ah meel iska fadhiyo ama maanta waxba oo maanta barasha aan ku jirin wax ma gaaraayo hadda waxaa loo jeedaa amaama malac dadka inta meeshaan soo xaadirsan maanta juhdiga aad bixiseen qof walbo qalbiga ayuu ku ilibeynayaa lianna waa dad oo maanta la soo carbiyeeyey oo maanta lagu soo dadaalay ayaad tihiin dadaalkii maanta lidinku soo bixiyey ama kaan aad bixiseen ha ku cayaarina hor u socdaan leeyahay baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu